waana yahayd markii madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ay heshiis isfahan ku kala saxiixdeen wadanka Itoobiya haddaba gabi ahaanba heshiiskaasi waxa ka soo horjeestay dawladda federaalka ee Soomaaliya halkan oo ah degmada Sheekh kumanaan ka mid ah shacabka ku nool ayaa caawa waxay u dabaaldegeen qadiyadda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanay taageereen heshiiska isfahan ee madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ay ku kala saxiixdeen magaalada Addis Ababa waxaanay gabi ahaanba ka soo horjeesteen hadaladii kala duwanaa ee ka soo yeeray dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo shacabka kala duwan ee ku nool caasimadda Muqdisho sidaad u aragtaa maadaama aad ka mid tahay shacabka degmada Sheekh saacadana 9 habeenimahana aad u soo baxday ما شاء الله أنا وان كفر حسني وأنا كتاجر سني شعور تيدنا وان كموجنا يا هذا دقمة الشيخ وان كتاجر سنة بدحونا دلك جمهورية الصومالية وهذا هذا الكوفيديين عدكم حي بين لقيه لي أنت وان كفر حسنا ما شاء الله والله هاي سنة والبا بش يا برواقة سنة كسنة كيسة أنكو قادنا مركوضة حلي صدق قلب أنا كديبني أرين كيجا صدق قلب أنا كديبني صدق قلب حويان بدو حويان وصبح مرو كخلدين مرنا وكسحين مركو كخلدين حويان إنه دل دل ككرايو بدأ الصومالة مركو كخلدين بدوني مقش مركو سحين حويان ومركو اعتراف نما كينيو مركانو كسحين متى كلام قدر سنة تانو حويان دكدابر برا boqolka 9 bay ku lahayn sheertoodi ma kala laabanayaan mise ku yeelanayaan ku lahaanay wali saacadu waa 10 habeenimo ayay ku sii shaqaysaa waxaanu taaganahay laamiga degmada Sheekh waa maxay dareenka aad kaga jawaabayso arintaasi ee saacadan isku soo saaray wallahi waxaan kaga jawaabaynaa in anagu midnimadayada iyo ma garanaysaa qarannimadayada ay muqaddis tahay oo ay meel ka go'an tahay yuhuud baa anagu wax la saxaxanayna hadii aan heshiis deeg aan wada galno ma garanaysaa Soomaaliya badda mayada nalay tugurigaba waati ma garanaysaa iyadu ka iibisay badda ka kareysay badda marka maan ku hadalno imkana waxa weeye badahayaga annaga sidaan doonno ma garanaysaa cidaan doonno ka kareyno waana ku faraxsanay waa maxay dareenka 9 habeenimo ka soo saaray gurigaagii ee aad suuqa ugu dabaaldegayso Soomaaliland waa dal madax banaan waa dal اعتراف لي مركان Soomaaliya hay toolay xasidnimada wada ay Soomaaliland madaxa kaga taagantay xiliga ka go'da way ogtahay dib ma ugu noqon mayso markaana walaatinimo ugu banaysa dawladda Itoobiya way ictiraaftay saasan ku tagnay marka dadka xamar ka qaylinaya ee Soomaaliland ku soo caabaxaya waxa la Soomaaliland way tagtay low way goosatay saacadu waa 9 habeenimo waxaanu ku suganahay degmadii Sheekh weydii ka bartan isugu soo baxay waa maxay dareenka gurigaaga ka soo saaray saacadan caawa farxadeed lama soo koobi karaayo anigoo mahadnaqay madaxweynaha iyaga jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay hambaliyo waqtiga walaaloy aanu soo baxay shucuurtaydana maba soo koobi karaba sanahay qaybteeda abwaaninta ama fogiyo suugaantiba waxaan ku leeyahay hambaliyo walaalo adaas naga mudan hambaliyo shacabka Soomaaliya deganaanshaha iyo xisiloonida uu maanta hayo waa mid lagu wada faraxsan yahay waxaan leeyahay nabadgelyada noo ilaaliya dhalinyartana waxaan leeyahay halka ka sii wada insha Allah ictiraafku noo yimi waa shaqo badan oo heli doona badda Soomaaliland waa muhiim in la kareeyo assalaamu alaykum leenahay gobolka markaa intaan kana ruuxiisa ee kubadii go'go'satay ma ku noqoteen ma idinka karnoo qaadi karaa shisheeyow gawsa wada usle ma idinka sheegan karaa gobonnimada daarad ma idinka matali karaa waxaanu leenahay hiil iyo hooba qarankayaga jamhuuriyadda Soomaaliland barakaysan hiil iyo hooba oo la garab taaganay wixii wax qabadana waan soo dhaweynaynaa madaxweynahayagana sharaf naga mudan waan salaamayna ku korsoonay waa ku wacana ya aan ugu hambalyeeyna go'aan ku gaadhay ya go'aan ku gaadhay gobonnimo waxa la Muuse Biixi arintaad qabatay waan ku faraxsanahay waan ku raacsanahay waan ku garab taagnay Soomaaliland ha noolaato baan leenahay guuliga gobonnimo baan leenahay waan ku raacsanahay
مستوى سلام يا دمان شعب reer Somaliland meel walba ku sugan yihiin caawa waxaan u soo baxnay inaan dabaaldegno اعتراafka soo ururaya ee dalkeenu helayo inta ka xun waxaan leenahay cadawga ma aflaxo ragga waa rag tagay waa wadan tagay faraha laga qaadaa ma soo noqonaye ina qaranka Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed heshiiska ay ku heshiiyeen in 20 kiiloomitir oo badda ku iibsano maanta اعتراafkeenu ku helayno 2 sano sugaynay maanta hadda اعتراafku inta ku helayno waa soo dhaweynayna waxana dhalinyarada degmada Sheekh waan ugu soo dhaweynaa birito waxa soo baxayna barnaamij weyn oo hogaaminayaan duqa degmada Sheekh Ismaaciil Xuseen Xabeeb iyo booliska deegaankaaba in hor ka caayaan waan soo dhaweynaa heshiiska madaxweynaha qaranka waxa uu diray guul insha Allah ya shacbiga jumhuriyadda Soomaaliland horta anigu waan soo dhaweynaa madaxweynaha Itoobiya dekada ka kireeyay si weyn baan u soo dhaweynaa madaxweynaha go'aanka ku dhawaaqay اعتراafkii uu xigaaladii gawri marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaa madaxweynaha go'aanka uu gaaray Soomaaliland waxaan u sheegaynaa in kama tirsan Soomaaliland idinku xaqiiqada soo ku ekaadana ya annaga Muuse Biixi ka taliye wadankan madaxweynuhu leeyahay waan soo dhaweynaa heshiiskana aad iyo aad baan u soo dhaweynaa waxaan u arkaa in ay si fiican tahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waan ku taageerayaa hambali ayaan ku leeyahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi